وحمانتا سي بلارن لوغو عدقمدا عيلفوين سلطان سليبان عويل ديرر oo ka mid noqday salaadiinta Soomaaliland munaasabada على مسارka suldaanka ay ahayd mid ay isku wada arkeen wajiyaal badan oo kala moogana iyadoo ay beesha suldaankan cusub dooratay ay halkaas kalsooni buuxda ku siisay suldaan Saleebaan Awil Dirir inuu ka mid noqdo salaadiinta beesha Saad Yunis munaasabadan على مسارka suldaanka cusub oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin uqaal boqorro culimaawdiin aqoon-yahano xildhibaano maamulka heer gobol iyo heer degmo haween tiro badan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horreynba munaasabada suldaankan cusub lagu calaamad saarayay suldaan Saleebaan Awil Dirir halkaasi hadalo iskugu jira dardaaran iyo dhiirigelin ka soo jeediyay suldaanka guud ee beelaha Habar Yunis Suldaan Rashiid Suldaan Cali Ducaale boqor Ismaan oo Maxamuud Buur Madow oo isna munaasabadani calaamad saarka suldaanka cusub halkaasi hadalo dardaaran iyo dhiirigelin ugu jira ka soo jeediyay afhayeenka salaadiinta Soomaaliland Suldaan Xiray intaas oo umada ayaa isugu timi aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxdhaqameedka dadka shacabkan Soomaaliland ee gobolada faraha badan iyo degmooyinka faraha badan ka yimi ayaanu u mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka aanu ka soo qayb galay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka aanu ka soo qayb galay dhaqanka Soomaaliland oo maanta suldaan cusub oo qiimihiisa karaamadiisa leh xildhibaan Bukhari oo yana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay sida ay u soo dhaweynayaan suldaankan cusub geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay doomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Rimaax maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha degmada Ceelafweyn Baasha Xamdulla Warsame waxay ahayd mid banaan oo meesha ka maqan waxaan ugu faraxsanahay kaalinta buuxsantay ee saldaanadeed ee halka ka abuurantay reer Ceelafweyn iyo ummadda jubbada Soomaaliland ba aanay u kala harin aad iyo aad baan masuul u yahay in badan ayay kaalintaasi banaanay markii sida warka ku hayno taladani in badan la ruuxay waxaan nolosha lagu calaamadsaaray sultaan Saleebaan Awil Dirir faahiyeen waanu nala shaqayn doonaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ka dhigo kii ku shaqeeya cadaalad xilkiisana ilaahay ku asturo iyo gudoomiyaasha degmooyinka Weyne Garadag iyo Maydh oo dhammaantoodba bogaadiyay suldaankan cusub ee la calaamad saaray oo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Khadar Axmed Diiliye oo suldaanka cusub ku booriyay inuu ka shaqeeyo isu soo dhaweynta salaadiinta Soomaaliland iyo inuu si dhexdhexaad ah ugu shaqeeyo bulshada soo dooratay iyo bulshada reer Soomaaliland gabagabadii waxa munaasabada calaamad saarka suldaanka cusub ee la calaamad saaray suldaan Saleebaan Awil Dirir oo ku dheeraaday sida ugu sinaan doono bulshada reer Soomaaliland midnimo cadaalad iyo shacabna ka qaaday inuu ka shaqeyn doono nabadgelyada horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan degmada taagan salaan gaar ah iyo mahad gaar ah aniga ku siinayaa wixii muftidaana waxa baarna dhaafaya ayaanu sameeyay محمد المي تلفزيون عالمي on Cable TV